دستورك بنلان واقع ما أخذ الشهر قفوا بوين أفسمالي كقري قفوا أفسمالي قري كان بيهلك الجوجة يا بحاول رقمي ويدين دستورك بنلان قبيلكم أدسنا ولو كل سنة دجال يقول الله مركب بنلان لو كل سنة هلك المجال الجروبي دجامان لو غيب شيء دجامان لو غيب شيء دجماني كي مركز جلال لو غيب شيء دجمان أنو قالت قول كانوا قال قوي توامبولها خلافك وذاك مركز شركة معمولة الله نحرس إسلام محمد بارك مركز لباتل قالوا أي سلوكتي هل بأنو قال يقوي والله قدر سراج مركز كوي شيء وعيان دجان كادت كدجاني هل بأنو قال يقوي والله قدر إرجاوة دجان كدورها بقولنا وحي حلا مذوق وحي لهاي إيوه عيد هذا لنا عكيل كسنة يسكفر يهينه الله كلا ساري كريم وحي لها أيام تمام بينها دجان كاس هو سودان دقيسة قبائل بيكون غيب صغير إيه الدجان هذا ما عرفان هجر هذه وحلا غيبته والدجان أنا الدجان بانكوس عنا أقل كسر لكن جي 4.5 كهاي ورجع قال كهو قرر مني ولي وين ماشي في هذا دستور كتب له قلنا قلنا ولي وين هرس عني marka waxaan jecelahay inaan ka baxno odayaasha la kala soo keenay oo la soo lugooyay wax dastuurka galay ma jiraan hadda ma fadhiyo waxba kuma lihidin shaqadii waa dhamaatay xildhibaanada doorateen baarlamaan baa la yiraahdaa iyaga xilki u saaran yahay madaxweyne doorteen madaxweyne wasiiru dhistay dib ay ansixiyeen golihii muxuu ahay garsoorka hadii waqti ka dhamaaday dib baa loo magacaaba baarlamaanka ansixiyay idinka shaqadiina waa dhamaatay ilaa suga miisa inay haray hal sano iyo barba inay haray doorasho kulli kale one man one vote laga ma gaareen markaas la inay imaanaya markiina suga dadka ha wareerinina ya reer mudug hadii wax isleekiin maqan yihiin dib u la noqdo idinku wax isu ceshay lugaaba waa la qaybiyaa waxba la isu ceshay waa meertay halka ka saxda waxayna ka qalbay hadalka aan dhageystay Cabdirashiid oo yiri dastuurkan saddexda mid oo saaxiib ku jira soo ra'iis baarlamaan ah iyo aniga iyo Cabdi Xasan Jimcaal Allah naxariistay waxba waligii laga bedelin waa been kii ka horeeyay oo la oran jiray ahadiga oo hore u jiri jiray markii degmo la saxiinayo markii gobol la saxiinayo looma furin dastuur lagama bedelin waxba waxa lagu ansixiyaa oo kana ku qoran hadii degmo la magacaabo oo dawladdu magacaawdo ama la magacaabo ee gobol waxa baarlamaanka la geeyo baarlamaanka ansixiya aqbala ansixinta iyo dastuur wax ka bedelid waa laba shay kale taa weyna fahamta arinta runta ay wata yaxbayaan la isku qaldin waligii wax laga bedelin dastuurka lagama bedeli doono article-ka 60ka wuxuu sheegayaa 60ka qof lama kordhin karo ilaa dadka la tiriyo marka dadka la tiriyo hadda doorasho la galiyo xisaab baa la sameeyaa markaas meeshii badan degmo walba ninka ugu dooranayo qofka ugu dooranayo 4.5 aan ku imaano qof muqoona aan hayno raga qaarkiis marka la daliilayo qabiil aan lagu keenin la dooranayo ba dadka fiican soo baxaya qabiil lama noqonayso nin kasta uu noqon kara qofka fiican reer aan boqol qof ka deganeen dalku noqon kara marka wixii qabiil wax ku doonaya dib u hayso noqdeen iyagu hay isla aadeen wixii nidaamka doonayaan ha ixtiraameen ka ama ful karo waxaan idin sheegayaa laba qodob oo aan ku dadaalay inaan cidda naga dambaysa ayaan waxyeelo cid u gaarsin waxa weeye qodobka 60aad oo oranaya 66ka xildhibaan lama bedeli karo ilaa dadka la tiriyo oo doorasho la galo qodobna waxa weeye qodobka oranaya waxaan ti dawladeeda lama gadi karo xukuumaddu ma gadi karo hadii oo $50 kun ka badan yahay waan ogtiin garow $50 kun buqcad yar baa joogta maanta marka taasna waxaanu xijaab uga dhignay inaan nin مثلا ba jeclaan lahaa sida meelaha qaarkood ka dhacdo loo agteena kama dhicin inuu hantida dawladda xaraashto inuu sarx awoodi karin baarlamaanka la geeyo ma baarlamaanku waa marjici ismaduna idinku inay ka yimaadeen iyo qabaa'ilkiina hawla idin aan lahayn lugta jeerada dhaaftaan noqonina meel fariisto assalamu alaykum